Akram Sweeties waxaad ka helaysaa macmiilkooda sarreyso. Keegu wuxuu qayb weyn ka yahay farxadda munaasabadaada. Waxaan meesha ka marnay noocyada kala duwan cuntooyinka fudud fast food, kuwaas oo haddii aad mar dhamiso aad u xiisi doonteen. dalba hadda oo nagala soo xariir Ibril Xalshan 63 Akram Sweeties. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. caawo waxaad iigu wacday ii sheeg aniga suweer horta aan dhankaaga waan ka gaabiyey waa run laakiin akhbaar fiican aan ku hayaa caawo akhbaarta fiican maxay tahay hooyadiis ayaa isbaranay weli isbitaalka la igu keenay aniguna waa dareensiiyey wiilkeeda in wax naga dhexeeyaan oo hadda maxaad rabtaa jamaal hooyadiis wiilkaada igu darin inaad dhahdo maya laakiin waxaa laga yaabaa duq hadday i jeclaato dhankaas inaan ka soo maro soo mogi fiiri midaas macquul gal maaha duq hadday ku jeclaato iyada kuma guursanayso jamaal habboon ayuu jecel yahay anigana waxaan rabaa habboon inaan kala wareego adigana jamaal ayaad jeceshahay meeshaas akhbaar iga keen halka ay ku sugan tahay habboon warkaaga waa la dhacay duqdana isgaadgaad ku hay u sheekee soo dhawee waxaa laga yaabaa jamaal markaa isguursataan saddex fiicanna inay kuu noqoto taas aniga igu haleeya suweer shaqadaan ku laabanaya wixii akhbaarana taleefonkaa kaaga soo sheegaya okay arrintan ha ka seexanin ku dadaal balan waay shaqada ma la qabsatay ma mar anaa sameey kafeega haddaa xirfad baratid oo ka anfacaysaa mustaqbalkaaga markaa joogaysid waxbarashada dugsiga maa kuwa ka helaysa jaamacadda kalsoon ma baahna waa wax loo baranayo shaqo waay hadda waa shaqaystaa dadka horeeyo jaamacada ka baxay waxa shaqo la'aan jooga shaqada waa nasiib kuwaas mar waa inay waiter noqdaan inay xafiis fadhiistaan ay rabaan waad fiicantahay saada oo fikraysid laakiin waa inaan isku wadaa waxbarashada iyo shaqada dib ma loo isku wadaa aab wax ma ku weydiiyaa maxay weydiinaysaa adiga hooyo maxaa ku kala tagteen soo marora kuma sheegin markaas waa yaraa laakiin hadda wax fahmaa ifraaxna saasaan ku waayey aniga hooyadaana xiriirkeena oo sii xumaaday saasaan ku kala tagay ifraax maxay hooyada u haysan weyday aniga waa ilma jeclaa markaan hooyadaa soo guursaday eedadaan kala tagnay waxaan ku heshiinay inaan ifraax haysto laakiin waa qaladkii ugu weynaa aan sameyn nolosheeda maxaa ku dhacay wiilka waxay weydiiyey sida hooyadaan kala tagnay anna waa u sheegay حافظي واقف
yaab horta xaafadii waa baaman ka wadana maas meeshaas ninaa lagu dilaa anoo arkay bismillaah maxaa loo dila aabo waxaasyaa isweydiinaa meesha hadda aan mootada kusoo marayna laba ninoo meydaa taamay aabo qof banaadam maskaxdiisa waxaas dhan say u xamili kartaa aabba meel walba rasaasaa ka socotis meel walba madaxa kor looma qaadi karo madaxa halmana kor looma qaadi karo waxaa soo foolxumaa adina annaga la soo carartay aabba kaama tegin gabar yaroo wooyeysa markaas muddo aad u yar oo cidlo kaligeed jiro asalaamu calaykum adeer Alaykum salaam adeer. see tahay lama shaqi waxaan kaa rabaa meeshaan waagi hore maxaa jirta meel oo baabuurta laga raro Boos jaajadura ma kaadle. Waa soo gudubtay. Laakiin adeer maalin dambiil ma jiray. waayo waxaan ka wadaa waagii dagaalada iyo meelaha meel baabuurta laga raro gobollada iyo waxaa jira Waagii hore ma kaadle. haa Adeer wadadaas kala ma ahayn. meel walba wax dhismay markii oo dhan waa isbedeleen meel walba dhismaa ka socda lama sheego haya adeer waa maad Hee, adiga ma shaa. meel walba waa isbedesho meel walba dhismo hadda markaan iska soconay waa intaasoo wax noo sheego intaasoo aragnaa السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gudaha hore u soo gala. maxaad siiyaa maxaad ka iibiyaa? waxaan rabnay inaan ogaano haddii waa wadadan ay ahaan jirta meel baabuurta iyo wax laga raro oo lafyo horaa dib u soo laabtay. haa lafii horaana dibaddaa ka imaanaysiin guryihiinaa gadgadanaysiin kadibna dibaddii aa ka timadana dib ugu laabanaysiin idinkoo dhanna sidaasaa wada noqoteen ceeshoo madaxi waa ilowdeen dagaal yaraa dhacaayo waa kala cararaysiin waddankan yaa looga tagaa qiimaha badan oo qaayaha badan yaa looga tagaa adeer macaan anaga keliya waxaan rabnaa inaan ogaano meeshaan in baabuurta laga rari jiray haa waa runtaa gabadhayda meeshaan baabuurta waa laga rari jiray laakiin hadda waa lagu kala tegay meeshaan dagaalaa dhacay waa lagu kala tegay hadda wax baabuuroo laga raro ma jirto waa ujeedaa sida ay tahay hadda iyo sidii waktigii hore ay ahayd waa kala fahmi kartaa haye gabar la baadi goobaay ma maqasho waqtiyadaas xaafaddan waxa waaye xaqiiqa waxay ahaa jirtay xaafadda ugu quruxda badan uguna qiimaha badan waa runtaa xaafaddan waa qiimo badnaa jirtay waxaan kaa rabnaa waagaas uu dagaal ka socdo gabar yaroo waa luntay la leeyahay oo la raadinayo iyo cid raadinaysay wax bal noo sheeg haddaa wax aragtay oo gabadha goormay soo luntay marka 20 sano hadda ka hor 20 sano ka hor haa gabadha yaa dhalay marka adeer waa mahadsan tahay noodaaba xaggee aadeen ma baxdeen waxba igama iibsanayn miya waa mahadsantahay haye haye iska taga hawsheedaan wadanaa aniga السلام عليكم عمر. هاي أحمد. سيتا. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. إيه ورنبل. والله الحمد لله ور في عنا. ما شاء الله. أحوالني معان كان ما عملت مع اسم اختياني. ما يهور معان سكر واحد ناقص كده. سكرتها كبدا. أحمد معان دي ما أنت مجرنتها هايو. مجرني. ogahay tusbix haro ka dhumay hawa kan allah hooyo inaan u baahanahay seed ku ogaatay qalbigaygaad ogtahay maasha allah khayr allah ku siiyo adigu waabad liibaani anaaba ogba khayr helaad tahay insha allah warar adiga waxaa ku liibaanaysaa maad gurigaaga joogo maxay yihiin hooyo warar gabadhan gurigaaga joogtay iyo la degan say ka ridibka hibo kugu sheegtay maaha gabadhan gabar wax baratay waaye markay jaamacadda dhameysay ballan ku qaateen oo heshiis ku galeen wiil eedadeed ay dhashay inay isguursadaan gadaal dambe waxaan fariir lahaa ka dhacay guurkoodii waa la diiday guur kale lagu qasbay
ayadoo guurka ka cararaysa guurka soo furtay marka guurka kala diidayso intii maqnayada waxaa la ogaaday in gabadhaas heebteeda aan la aqoon sababta guurka loogu diidan ay sababtaas tahay 20 sano cidi soo korsanaysana ay ka qariyeen gabadhan waxay tahay marka hore gabadhaas garab ay nooga baahan tahay si ay reerkeeda u hesho adigana waxaan kaa codsanayaa inaadan gurigaaga ka burin oo aad la raadisid reerkooda oo aad ula dhaqan sida gabadhaada oo kale kacibeygu waa laakiin habar ana ila wadaagtay sirtaas war kacibeygu waa hadalkaaga waan fahmay kac Ibo تعال قولك فدي ما وصل رخص هي هو adiga maxaa gabadhan arrinteeda iiga qarisay garaamku waa qalad igeed ani xitaa washilaa anagu ma arxan laawayaal baan nahay see noola dhaqanteen caawa hadda habboon way maqan tahay reerkeeda raadintiisa ku maqan tahay maanta waxaa la geenayay meesha laga soo helay yaraanteeda hiboy goormaa sidii ruux weyn u dhaqmaysaa ilaahow adaa mahad leh anoonba gabadhaas islaameed aan cuqubo ka gelin oon guriga ka eryin alxamdulilah haddayba guriga joogto yaa ilaahow adaa mahad leh ismahane naa ismahan hooyo waa ku maqlooyaa kaale hooyo hooy hee beyso hooyo hooyo arrin kheyr ahaa nagu soo korodhay kheyr maxaa hooyo arrinta waa lagu imaanaya waa lagu imaanoyaa maxaa liigisoo doona maxaa dhac ma lagu imaan karee waa lii imaan karaa laakiin hee anoo liila tashanin maa lii bixiye yaa ku yiri waa lagu bixiye waa lagu imaanaya mii dhihinoo hadda waa lagu imaanaa leen ku dhahay waa lagu bixiye kuma dhihin maxaa la cabsanay yaa ii imaanaya marka aabaa xalay ii sheegay wuxuu igu yidhi xildhibaanka beesha ayaa raba inuu imaado wuxuun rabaa inuu kula sheekaysto odaygaas weyna see camal odaygaas waa qaraabada waana nin madaxa odaygaas basada xiiran ma rabi haddaba waa idiin sheegay dhegeyso cid ku qasbaysa ma jirto keliya waxaa lagaa rabaa inaad la sheekaysato ood soo dhaweyso wuxuu ku dhahaya maqal waxaa laga yaabaa go-aankaaga inuu wax iska bedelo aabba muxuu aaminsan yahay inuu bixiyaa aabbaha hadduu rabo inuu ku bixiyo aniga iimuu sheegeen aabbo waxaa raalli ka taho raalli ka yahay keliya waxaa lagaa rabaa ninka inaad soo dhaweyso la sheekaysato wuxuu ku dhahayana aada maqasho annagana aadana ceebeynayo go-aanka ugu dambeeyana adigaa iskale ku dhaca warkeyga kheyray noqonaysaa kheyraba ku dhammaanay insha allah ee adiga wanaagka lagaa helo ma ku dhaca warkeyga orod bal daawada iisoo qabayaan ilaamina intaa dhigtaa qolkayga jiifka komadiintiisa hooyo soomaaliya ma usoo guurtiin soomaaliya fiicnaa leeda da ila joogtiine of course hooyo ma ka maarmaa cabdicasiis ma kula joogaa mise iskoolku aaday ها وجوب يا هاي هويا هاي حبيبتي أديك أنا أبي ما يقول سلام هاي ماما حبيبتي مع السلامة حبي وياكو سلام يسين الله يسلمها maxay ku dhibaysaa salaam laha marka u sheeg inaad joogtid waa carartay ba
عبي مم. قوي عجز ما صوماها ماي والله iska caadi waa la qabsadaa deer اوكي هذا علاقة بس مركز مرسيين قريه شقيس وحكا قبا شقيسو hawshee qabanaa حبيبتي اسمهان واي ما قرأتي قريه هذا كليجيد واي مركا هوش دhan ayadii ku taala marka waxa laga rabaa inaa caawisid soo walba ayada kaligeed ma qaban jirin hawsha guriga maxaa hadda isbedelay aniga la guriga ku kordhay aniga ma culus ah ما انت اساس maahan gurigan howl badan ma bataalo marka shaqeyso wax ka qabo guriga shaqadiisa adii ani howl hadda qabanaa adile ku qabanaa adile wax ku karinaa haddii ay soo aroosto inaa cidaad u shaqeeyno taas wax kale waa ii sheeg bisaas maahan una xaas fiicantii ona la ogaado waxaa ona guriga howshiisa wax ka qabatid xirsi fiiri uma baahni qof kale inuu ogaado inaa ahay xaas fiican واضح يومك سعيد أحمد عدي maxaa isku kaa daba dhacaya إيه لسيتها ولا شيء waa fiicanahay bahalow intee joogtaa magaalada wax dhib ma jiro jaamacadda joogan oo inay soo qaadaaro xoogaa wax akhriska ku caajisay way fiicnaan lahayd laakiin maanta waa mashquulsanahay sayid ku iman karo waraa axmed taleefonka iigu dhiib waa axmed qofkaa la hadlaysa wixii barankiya markaa dhammaysanaynaye ninkaas taleefonkiisu celi idil dhibka joojino waa axmed qofkaa la hadlayside adiga dhibka jooji maxaa kaa qaldan maanta maxaa ii kaa dambeeyey idil khayra kuu rajaynaa mar kale asarkeenaa dhible ayaa aniga maa dhibley ah sugba saaxiibo maxaa ii kaa dambeeyey maya waxna ee mashquulka iga dhaafno weligay kuma maqlin adoo saan u hadlaayo maxaa ka qaldan sidaan u hadlaayo ma dareensan tahay maanta oo dhan magacayga iigu waceysaaye maya intaasna kuuguma wacin waa huwa waa iigu wacday laakiin maxaa ka qaldan haddaa magacaaga kuugu waco waxne qofkaas axmed maaha laakiin waa inoo mar kale idil khayra kuu rajaynaa waxbaa kaa qaldan saaxiibo maca salaama waa ka xumahay xusuus la-aanteeda ciisha wax badan inaan soo xasuustay maanta oo kale aaba saas ha dhihin waxaa xusuus noogu filan maalintaas inaan adiga ku helay maalintaas waxaa isoo jeedisay oohintaada anigana culeys ayaa haystay xirsi iyo jamaala waxaan u raadinaya baabuuran ku qaxiyo balse markaan arkay sidaa ii fiirinaysid indhahaada oo dhahayo soo iima jeeda inaan kaliga ahay soo ma arkaysid inaan gabar yar ahay intay igaga tegaysaa indha dhahaya igu soo fiirisa abba waa ku dhici waaya inaan kaa tago maalintaas sidaan kuu soo xambaarsadaan weli kuu sidaa aaba naftaada kaalisii gelisay maalintina waa awoodda ilanteeda inaa iska indho tirto iska baxdo laakiin ma sameynin aaba dhabarkaad igu qaaday maalin dhabarka layska jebinaayo naf ayaad nolol siisaa iyadoo meydka laga tilaabsanaayo aniga keliya waxaan rabaa waalidiinteeda inaan barto ee waalid la-aan ima hayso waan haystaa waalidiin i jecel oo weligay cil i dareensiinin aaba aabahay waa adiga maanta iyo mar kasto aaba hadda intaan wax u raadinaa aaba meel kastoo wax ka heli karno garabkaadaan taagana
waa doctores xamdi aa la yidhaha hooyan u socda inaan diro haa sagal hooyo ku sugaysaaba mahadsanid magacaada ismahaan aa layidhahaa barasho wanaagsan wanaagsan soo dhowow hooyo doctores xamdi aa imaadee gabadheed ma imaatay oo ku soo dhibaya qay iga raali noqo hooy dhib ma laha hooy macaan ii fadhiiso ii fadhiisa adiga hooy naabal orod gabadha biyo cabtay igu keen maya hooy caadi waaye ismahaan hoo baa hooy usoo samey biyo maxaa isku soo dhigta hooy liin badanaa guriga buuxday hooy caadi waaye liinta waxaa loo baahan yahay liin fara badan inaa cabtid sida dhiigaaga foorta u noqdo marka liinta badso maasha khayr allah ku sii hooy hooy gacanta iiga waran bal xaalma ka hurday waa ka hurday alxamdulilah laakiin markaan isgedinaya ilaalis badan iga rabtaa oo way danqanaysaa insha allah way caafimaadaysaa insha allah hooy dareemi karaa culayska ku haysta xajmigiisa laakiin waxaan kuu sheegayaa inaadan isdhiganin oo fursadaha iyo caqabaduhuba ay noqdaan sida ay kula muuqdaan walaashii wixii maanta ka dambeeya waxaan rabaa inaad ku seexatid kusoo toostid inaad haystid family reer ku garab taagan waqti kastana diyaar kuu ah gurigaana kama tiid marti sida oo higoo kale waxaan rabaa inaad guriga gabar ku dhalato kale ay ka noqotid ismartiin waa runtiis duca iyo dadaalba waa kula garab taagannahay maamo alxamdulilah gudaha ka farxooya mana aqaan sababto hadalkaa dhihi lahaa bihi baa idin dhahday ma aqaan isku qalbi anaa umaleynaa abaalkiin ilaah la iga gudi karo iiga war maanta meeshii aa aadeen maya walaahi waa aadnay laakiin qof wax cusub igu soo kordhiyo ma arkin ogow laakiin hal mar iyo hal maalin midna kuma filla waa in lagu noqnoqdaa waa sax xaafaddu way weyn tahay mar walba in laan la maro oo dadka lasoo wareysto kuwii hore joogi jiray soo saas ma fiican talooyinkiina waa qaataad kadib saas sameynaa insha allah laakiin wax baafin ma loo baahni miyaan baafinta lama huraan waaye laakiin wax badanaa ka horeeya dadaal badan in la sameeyo oo baafinta way dambeynaysaa maxaa marka macnaha maxaa ka mid ah waxyaabaha ka horeeya wallaahi waxay la tahay in meeshaa kulanta la tago oo macluumaad badan laga soo xaqiijiyo astaamahaagii dadaal badan la sameeyo oo aanan laga gaabsanin oo dhaqso aan la isdhiibin saasaa ka horeyso insha allah khayr ayay ku dhammaan doontaa ilaahay idinkiis axmed habarir haddaadan nala joogeynin oodan nala baryeynin waa xilli dambe maa hooyatid haye habarir habboon insha allah berri aanu baranay wixii kaloo soo kordhana telefonka iga soo sheega insha allah haye mahadsanid abo haye hoosii baxaa abi wanaagsan khushuucana la iska daaya arrintii hagaagi doonta insha allah ilaahay idinkiis hooyo haye hooyo nabad allah ku yeelo haye hooyo habboon xabiibti lahada waa kula hadlooyaa jamaal sidee tahay habboon alxamdulilah waa fiicana habboon waa ku xumaa sidii wax u dhexeen gidaana wada gubanahay dhibka sidiisaba laguma waaro koley waxaa la gaaro waqtigii laga bixi lahaa habboon oo faraxsan inaan arko wax walba un sameynaya
mahadsanid abo. waxaan dareemaa inaan qalad iga fahantay muddo badanna waa ku raadinayay Waxaan rabaa inaan seexdo mar kale is maqleena. aboon waxaan kaa codsanayaa waqti yar inaa siiso please wanaagga naga dhexeeyo dib u xasuuso qalad uu qofkaa gala aniga igu ciqaabin waxaan rabaa inaan kulanno waa ballan hadafkaaga makaa mashquulin doono kaliya waxaan rabaa arrin muhiim inaan kaala hadlo Hay, anaa ku soo wacay. Bye.